شاء الله ما أنت حنحسن حديث رسولك عليه الصلاة والسلام من الشيء رسولك عليه الصلاة والسلام كليه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نبي عليه الصلاة والسلام حكسوا قاضي قفك مؤمن كها وحيوتها الدنيا دو أنا يوتها تشال أيون الشيء رسولك عليه الصلاة والسلام قفك قال كأنا يوتها محي جنة يوتها وقفكي قال كهذا جنة كم الرئيسه جنة وحقول الدنيا ذا وشوقي وكو بمعنى وعنايا وعبية وكرها حيسنا يا الدنيا دي لكن قفكي مسلم كها أصلا محسمين يا قفكي مسلم كها الدنيا دي ودذاليا وتعبيا تعب يقليا سيدا وآخر ديسا يفكي سوى إصلاحين لو وناجين لها يكد ذالي لكن قفكي قال كاسو آخرة كما الرئيسو آخرة كوريسا ما جرتو aduunka ayuu si raaxaysanayaa waxalaala iyo wuxuu hayana isugu geynayaa soo u noolaan lahaa nolol fiican soo u noolaan lahaa ayuu doonayay. laakiin qofka muslimka ah noloshiisa koowaad waxa uu ka dhigay waa nolosha aakhiro si uu hagaajisan lahaa soo u noolaan lahaa soo u wanaajin lahaa soo nolol fiican ugu noolaan lahaa aakhiro ay ku dadaalayaan. marka walaalayaal waxa loo baahan yahay qof kasta oo muslima inuu ku dadaalo soo islaaxin lahaa u wanaajin lahaa u hagaajisan lahaa noloshiisa aakhiro ayaa loo baahan yahay. tiisa adduunyadana hagaajisan lahaa aan galada la raacin oo laga daba dhicin oo adduunyada ay urursanayaan iyo raaxada ay ku jiraan aan lagu kadsoomin. taas waxa weeye waa mid dhammaanaysa berina waxa u bilaamaysa cadaab u bilaamaya berina cadaab ayaa u bilaamaya gaalada maantana waxay helayaan xitaa wax maaha daa'imay marba noloshooda way isbedbedelaysaa mar nimcay helayaan mar waxay helayaan abaarba balaayo kala ku asiibaysa xanuun baa ku dhacaya nimcadii uu siinaya maxay ka taasoo dhan waxa u sababa ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay ka kufriyeen oo ka gaaloobeen ayaa u sababa. marka waxa loo baahan yahay aakhirada si loo wanaajin lahaa inuu dhammaanteen ku dadaalo qof kastoo muslim أو تلديس كوباد وشيتديس كوباد أو كريجو آخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.